kusoo dhawaada carwada Jawhara Buuhoodle. magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa laga furay carwo casri ah oo lagu magacaabo Jawhara. carwadan oo laga heli doono adeegyada noocyadeeda kala duwan. munaasabadan xariga lagaga jaray carwadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cayn ee Puntland Cabdifataax Ciise Maxamed. waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay Yuusuf Abgaal iyo waliba sidoo kale Maxamuud Cali Xasan oo kamid ah mulkiilayaasha carwadan. xalfadan ama meeshan furitaankan waxay daaran tahay Jawhara Business Center waa meel ganacsi xarun ganacsi oo aanu deegaanka ku soo kordhinay meeshaas oo ka kooban 4 qaybood qayb supermarket ah qayb carwo ah qayb electronic ah iyo qayb baby care ah 4 qaybood bay ka kooban tahay marka waxaan ugu talagalnay deegaanka inaanu ku soo kordhino horumar iyo adeeg loo baahan yahay in laga helo meeshan insha Allah taala waxay noqon doontaa Jawhara Business Center qofku marka uu ka soo baxo gurigiisa uu adeeg soo doonto bartii ay ku kalifi lahayd 2 meelood ama 3 meelood ama 4 meelood kala duwan inuu midba qayb ka sii qaato inuu qofku adeegiisii oo dhameystiran halkan ka wada helo taasi waa business aanu soo kordhinay oo ma garanaysaay waa carwadii ugu horeysay ama moolkii ugu horeeyay ee intaas oo qaybood ka kooban marka labaad alaabta aanu keenay waxaanu rajaynaynaa inay 2 arimood ama 2 qodob la gaar noqoto mid oo ah qiimo raali geliya dadka ka adeeganaya inuu noqdo iyo ka labaad oo ah alaabahan oo alaabo aanu si gaar ah u soo xulnay oo waxa la yiraahdaa sheeg warshadii sameynayay ama meelihii laga keeni jiray aan toos uga keenay waxaynu ognahay ganacsiyada qayb waxay ka soo adeegaan ganacsatadan ama wajaale ha joogaan ama Hargeysa ha joogaan ama Boosaaso ha joogaan oo kale waxaanu isku daynay oo taray garaynay in dadkii laftigoodu ay ka soo adeegan jireen gobolada kale inaynu inaguna ka soo adeegano si ay uga baxaan qiimihii la saari jiray ama qiimihii faraha badnaa ee inaga deegaankeena ku dhacayay marka insha Allah taala alaabo badan oo aan deegaanka hore loo keenin iyo qiimo macquul ah labadaba in loogu yimaadaan rajaynaynaa runtii deegaankan waxaa muuqda horumar ballaaran oo dhinaca ganacsiga waxayna u soo kordhinayaan magaalada bilic iyo in la helo adeegyada ka maqan waxaan aad u mahadcelinayaa maamulaha Yuusuf iyo Maxamuud Cali Xasan iyo teamka abaabulay ganacsigan oo runtii ku dayasho mudan anaguna waxay noo tahay maanta inaan jaaniska aan uga faa'iideyno bulshada in aan u sheegno in ganacsiyadan sidan oo kale loo hormariyo oo runtii bilic iyo in wax walba laga helo oo magaaladii aan ay noqoto meel si wacan looga dukaamaysto magaaladan oo runtii magaalo xuduud ku taala oo dadka deegaanka labada daanba runtii wax badan u tari kara waxay muujinaysaa in magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha inay la tartanno oo ganacsi noocan oo kale aan keenno waxaanu markhaati ka nahay xarig jarka moolka weyn ee laga furay magaalada Buuhoodle Jawhara Business Center marka ugu horeysa waxaanu hambalyeynaa ganacsatada dhalinyarada ah ee fikirkan ku dhiiratay inay maalkooda gashadaan deegaankooda waa mool casri ah oo aan oran karayo wax walba haye marka hore waa bogaadinana teamkaas maalgashiga inta la magaaladoodii ka sameeyay waa wax lagu farxo businessku waa waxyaalo ha ugu wanaagsan ee dadku ay ku horumaraan dhalinyaro carwo waayeel iyo dhammaan bulshada qeybaha kala duwan laga adeegayo kulay meheradu marka la faro waxay ku jeceshahay in wax laga gato waxaan halkan ka cadeynaa maanta wixii ugu horeeyay inaan ka gadanayo agabka ugu horeeyay inaan ka gadanayo carwada Jawhara waa carwo special ah qurux badan oo carwo dhalinyaro ah aad baan u bogaadinaynaa waxaan kale ugu bogaadinayaa inay deegaanka dhalinyarada si soo jiitaan ay qiimo dhimis sameeyaan carruurta ay u socoto
carwooyin kale waxay ka duwan yihiin maadaama ay keenaan qiimo dhimis inay raaciyaan. Maxamed Ali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Bohoodle.